Asalaamu calaykum walaalaha soo dhawaada youtube-ka boqorada barakeysan. Maasha Allah maanta waxaa idin wadnaa buskudkan aad u jeedaan qaabka aan u sameeyay ayaan il wadaagi doonaa insha Allah. Waa buskud aad iyo aad u macaan runtii anaa idinka soo barooweeyay. Maasha Allah idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan hadduu Ilaahay dhaho. Okay, daawasho wacan. meesha waxaa ku heesanaa 2 koob oo subag buura ah. maxaa laayay koob subag ah had ku shuweena. haddana waxaa kale ku dareena koob kale adaarad aad waa ka badsan kartaa laakiin qiyaasta waxay ku fiican tahay 2 koob oo subag buura ah. waa ka subaga isticmaalay buurada waa u jeedaan insha Allah. koobkii kale ayaa ku soo shubaneena saysan qiyaasta kaaga khaldamin. iska qiyaasta iska taxadar mar walba. waa u jeedaan walaal saa cabirayo. halkaad waxaa ku soo shuban koobkii kale. waxaa ku darsan doonaa koob sokor ah oo la soo shiiday. sokorta inaad iska soo shiidid ayaa fiican. koob sokor oo shiidan. waa isku shiidana hadda isku dhalaalinayna sokorta iyo subagii wax kale ma ku dareeno. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan. si fiican isugu shiid ilaa ay iska dhex galaan. makiinada si fiican ugu shiid. makiinadan waa jeedana umaleena midii oo loogu talgalo waa in burka iyo waxaas lagu qasto sokorta lagu dhalaaliyo. inaad isku dhalaalisid si fiican aan rajeynayaa. fiican isugu dhalaal ilaa iska dhex galaan subagii iyo sokortii. waa kan u jeedaan see noqotay qaabkeeda ilaa sidaan uu ka noqonayo inaa ku wadid waaye makiinada uu kareem camal ka noqdo. wax biyo ah kuma darin. waa subagii iyo sokortii bas wax kale kuma darin. buskudkaana ma loogu talgalin in biyo dhan lagu daro. hadda waxaa ku soo darsaneynaa koob saliid ah oo ku shiideena ayadana ilaa ay si fiican isaga dhex gasho. inaa jileec zaid u ka noqdan ma fiicno. biyo ma ku darsaneena. hadda waxaa ku soo darsaneynaa koob caano oo budo ah. caanaha ratid waa isticmaali kartaa ay nooc oo guriga ka heli kartid oo budo ah ayaa loo baahan yahay inuu qasan yahay ma la rabo. inaa budada isticmaashida fiican si fiican isugu qas ilaa uu aad isaga dhex galo. wax burbur ah niyuusan ka yeelanin sida kareemka camal u dhalaali. waa u jeedaan saa makiinada uu celcelinayo ilaa uu iska dhex galo. makiinada ha ka joojinin uu si fiican isugu qasmo. waa u jeedaan weli waa ku wadaa. waxaa rabaa inuu si fiican isugu dhex galo. idinkan waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan qaabka u qasayo. laakiin hadda si fiican uu isku dhex galay. waxaa ku darsaneynaa haddana 2 xabo ukun ah. waa kan ukuntii oo diyaarsan ku darsaneynaa iyo qaando oo faniila ah. nus qaando oo faniila ah. caraftay ka caawinaysaa faniilada. waa taqaaniina rajeynaya idinka dhan. si fiican isugu qas isku dhex geli mar walba makiinada si fiican isugu qas. buskudkaaga inuu ku qurux badnaado waxa ka caawinaysa inaad makiinada si fiican ugu qastid. si fiican isugu dhalaali. waa kan walaalahay waa u jeedaan say isku dhex gashay oo kareem camal ay u noqoto xumbo xumbo. waa kan waa u jeedaan maasha Allah saan camalna ka sameeysiinaan rajeynayaa. hadda waxaa u baahanahay oo kale 1 kiilo oo bur ah oo ku qasaneynaa. 1 kiilo oo bur ah waa qiyaastii ka khaldamin. haddaa rabtid aad ka badsan kartid waa ka badsan kartaa. haddaa rabtid waa ka yareysan kartaa. ana hadda waxaa isticmaalayaa 1 kiilo oo bur ah. hadda waa u jeedaan burkii ku soo darsanay. waxaa loo baahan yahay inaad isku qastid. halkaad qaandadii ku qasaaya si fiican isugu dhex galo inuu burkaagan jileec ahaada fiican mar walba. waxaa ku soo darsanaa 1 qaado oo bakin ah. 1 qaado oo bakin ah. bakinka yuusan kaaga badan yuusan kaaga yaraanin.
waan hal kiilo oo bur isticmaalaya hal qaado oo bakina ku soo darsaday baaquliga xoogaa cariir iyo noqdo walaalahayga raali noqdo marka hadda baaqul kale ku soo gadiyay hadii baaqulku ku deeqaya ku qasan kartaa mid kale ee muhiimka ah gacmaha iska soo dhaq intaadan dhex gelin aan hadda gacmahayga waan soo dhaqay si fiican u soo dhaqay marka burkiya isku dhex gelinaya si fiican isku dhex geli inuu isqeeysta fiican insha Allah step-ka xigo waxa kale oo baahanahay qarfo shiidan iyo blue band iyo timir waa kan qarfihi iyo blue band-gana isticmaalaya iyo timir shiidan timir aan lafaha ka soo bixiyo soo ridqay waxaan ku soo darsaday 2 qaado oo subag ah qiyaasta adigana fi qiyaaso أنا قياستي intaas waaye iyo wax yar qarfa u baahanahay inaan timirta kul daro oo isku xasho nus qaado oo qarfa ah waaye subag kale waa isticmaali kartaa blue band-ga qasab ma ahan ana blue band-ga haysta isticmaalay si fiican isu xasho isku dhex gali timirta iyo blue band-ga iyo qarfiga isku dartay si fiican na isu xashtid waaye waa u jeedin soo baxay hadda waa ku kuusaneynaa markaan saxankaas diyaarsanaa saaranaya couscous yar ka sameeyo yuusan ka weynaanin couscouska yuusan ka weynaan yariis ka dhig hadda waa kan buskudkeeniyo diyaar ah iyo timirteeno diyaar ah is dhex gashaneena xoogaa yar bura aan gacanta ku fiiyay dhex galiyay gabal yar oo timir ah isku duub timirta inay meel ka banaanaato mal rabo hadii meel yar ay ka soo baxdana dib ma lahan waa kan buskudkeeni waa isku soo celcelinay geedkaas ku sameeysanayna maanta waa u jeedaan oo maleena saameynayo ina ka faa'iideystaan rajeenayo insha Allah geedkan waa geedka buskudka loo talgalay waa ka walaalahay fiyoodihiisa saasoo ku soo baxay saxankeeni foornada ugu gashalahayna ku soo diyaarsanay waa kan hay buskudkeeni waa diyaar hadda foornadii ay algeynaya si aan u soo duwano waa kan aniga foornada gelinayo kuleelkan ha ka badinin foornada daarnayna hadda 180 degree 180 degree aan ku dubanaya kor iyo hoos ay ka shiday ani hadda waxa geeyay 40 daqiiqo inuu igu duwo laakiin 20 daqiiqo igu duway هذا وحوجا عيرين كايا دقيقة وأكو درسن كرتا بملهن وهكذا هي بسكوت كيني ونوصو دب ما هذا سوق صباح وأجيدان عرفتي سمال قياسي كرو وحي أو إيش داخل أورك داخل مليه جرنو هكذا هي بسكوت كيني سانو صباحي عرفتي قروح ذي سوا أجيدان ولا ليال وحرجينا هنا كفائدة ستان إن شاء الله hal mar aydiin soo koobo waxyaalaha loo baahan yahay in buskudkan waxa kamid ah 2 koob oo subag ah 1 koob oo sokor shiidan ah 1 koob oo caano budo ah 2 xabo oo ukun ah 1 qaado oo vanilla ah 1 koob oo saliid ah iyo 1 kiilo oo bur ah iyo 1 qaado oo baking powder ah waxa kale loo baahan yahay rubac timir shiidan nus qaado oo qarfi shiidan ah ila qaado oo subag ah oo lagu qasaayo timirta wixii comment ah haysiin qaybta hoose commentiga noo soo qora like iyo share kan waa xaqiina asxaabtiina la wadaaga please channelka subscribe noo saara gambaleelkana furta soo idinku soo dhaco video walba cusub aan soo galino insha Allah ku mahadsantihiin dhiirgelintan waa xaqiina